munaasabadan xarga looga jaray mashaariic dhowr ah oo laga dhisay degmada Ducley ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug qurbo-joog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mashaariicdan laga tababariyay degmada Ducley ayaa waxa kamid ah saldhig booliis xarunta degmada iyo waliba dhismaha isbitaalka degmada waxaana hirgelintooda iska kaashay dadka deegaanka iyo qurbo-joogta madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa si wadajir ah xarga uga jaray dhismayaashan muhiimka ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Umar Maxamed Dariye Umar Guureeye oo ugu horeynta ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu degmo dhameystiran u aqoonsiyahay magaalada Ducley loogana baahan yahay dadka reer Ducley in la yimaadaan horumar intaan ka badan magaalada Ducley markaanu sarfay badan ku sameynay qorshe badan aanu ka gaarnay talooyin badan aanu ka sameynay dhammaan waxay buuxisay shuruudihii looga baahnaa degmo يا population-ka dadka ku nool hadii aan la dhaqaaleeda hadii aan la masaafada xuduudaha ay degmooyinka kala la leedahay hadii aan la taabayaashii dadweynaha oo dadku u baahnaayeen oo kuwada ugu dambeeyay aad maanta adigu xar ka soo jirteen oo ah saldhigii booliska maamulkii degmada isbitaalka caafimaadkii waxbarashadii wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay laba ujibaar intaan ka badan u dhisi doonto dhismayaasha ay dhisteen dadka reer Ducley xarunta maamulka degmada 3 qol baad dhisateen waxaan idinku sareynaa 3 qol oo kale hadii la yiraahdo xarunta booliska ama saldhigga booliska sidoo kale waxaan qayb ka qaadan doonaa xarunta maamulka qalabeyntooda iyo in sidoo u shaqeyn lahaa qalabka ka maqan iyo wixii hawsha lagu bilaabi lahaana qayb baan ka qaadanaynaa saldhigga booliskana 3 qol baad dhisateen intoo kale ayaan ku daraynaa haddii la yiraahdo haddaad 6 qol ka dhigtaan 6 kale ku daraynaa maasha Allah toban ka dhigtaan toban kale ku darayna inta aad idinku qabsataan in leeg ayaa dawladdu idin qabanaysa haddii la yiraahdo isbitaalka oo runtii ah labdhabarka hooyooyinka carruurta odayaasha iyo shacabka halka joogaba waxa weeye waxaan ku faraxsanahay tallaabadaas la qaaday madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabada ayaa dadka reer Ducley kula dardaarmay in la yimaadaan horumar wanaagsan si ay ula tartamaan degmooyin kale ee ka jira gobolka sidoo kalena ay ka caawin doonto Galmudug horumarka degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka shacabka ee ku dhaqan degmada Ducley markuu wasiir dowlaha dowladda Galmudug Umar Guureeye wuxuu cadeeyay aqoonsiga degmada oo Ducley insha Allah annagana maaragtay waa wuxuu jinayna waan cadeynayna hadii la yiraahdo heer dowladda Galmudug sida cadna maaragtay wixii ku aadan arrimahaas sida ugu dhaqsaha badanna waxba uga qaban doonaa hadii la yiraahdo waxaan farayaa hadda wada maqlaysaan idinkoo dhan wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug inay degmadan ku soo noqoto muddo ugu badnaan 10 casho gudahooda ayna maaragtay muxuu ahaa ku fuliso sidii degmadan council lagu dhisi lahayd oo council lagu dhisi lahayd degmadan council ku yeelan lahayd haddii arrintan guddoomiyihiina war doorta ama cid kale doorta laakiin heerkii nidaamkii oo waaqic ah oo dhabta ahaa oo doorasho in la mariyo oo muxuu ahaa degmada ay dhisanto oo councilkeeda yeelato golo deegaan ay yeelataa Soomaaliya golaha deegaan ay yeelato oo maaragtay muxuu ahaa golaha deegaanka oo idiin saari doono mashaariic badan oo runtii aan isleeyahay adinkana ma qaban kartaan Galmudug ma qaban karto dawladda waxaan ma qaban karto laakiin hay'adaha caalamiga ay qaban karaan si fududna markay shuruudaha helaan oo buuxiyaan loo baahan yahay in maaragtay la helo waxaan rajaynayaa mashaariicda hadda ka shaqeeyo UNDP iyo GPLG iyo wax la midka bishaan hadda soo socota aan joogno oo August bilowgeed waxay imaan doonaan degmada Cadaado oo xarunta gumeel gaarka ah Galmudug markay yimaadaan waa la wadaagi doonaa arrintaas in maaragtay ay muxuu ahaa ay ka qayb qaataan dhistaanka iyo koritaanka degmooyinka cusub oo ay ka mid tahay Ducley hadii la yiraahdo
magaalada Dooley oo qiyaastii 45 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Cadaado ayaa ka mid ah deegaanada sida weyn looga dareemayo horumarka ee dadka deegaanka iska kaashadeen kaas oo ay ugu magac dareen neefka abaarta ku dhiman lahaa dalkaaga ku dhiso. Axmed Maxamed Xasan Axmed Suudaani, Jubaland TV, magaalada Cadaado.